faaliyaha bulshada toddobaadka waxaan ku wareysan doonaa wariye Cabdiqani Ismaaciil Goox oo kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Laascaanood. Cabdiqani Ismaaciil Goox marka hore waxaad ka warantaa xaaladda guud iyo gobolka Sool iyo dhammaan deegaanada Khaatimo. bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. markale aad baad u mahadsantihiin waxaan salaamayaa ninkan wariyaha ee Mukhtaar ee wareysanaya iyo ninkan barnaamijkiisa isku soo diririday mawlid ah oo always aynu uga baranay inuu bulshada uu gudbiyo marba aaraahda ka cusub gudaha magaalada Laascaanood. waxaan maanta shir jaraa'id ku qabanaynaa meel 25 mitir u jirta saldhigga dhexe ee degmada Laascaanood oo horteena ka muuqda. shirkan jaraa'id wuxuu noqon doonaa shirkii jaraa'id ee ugu muhiimsanaa ee aanu dhawaanihii ugu dambeeyay ku qabanay gudaha magaalada Laascaanood. shirkan jaraa'id waxaanu kaga hadli doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee degmada Laascaanood iyo guud ahaanba madaqada teenan Khaatimo. maanta inagoo aad u jeedaan wiilka sawirkana aan jeclahay inuu kaamirada u duwo dhanka saldhigu halka inaga xigo saldhigga dhexe ee degmada Laascaanood baan u dhownahay. waxaana cadaynaynaa in bulshada reer Laascaanood iyo anaguba inaanu nahay dad reer Khaatimo maamul Khaatimo aanu leenahay baanu cadaynaynaa haday nagu dhageyso. maamulka Khaatimona uu yahay maamul ay leeyihiin dadka deegaankani taasaanu cadaynaynaa hadina la xidhayo iyo hadina la laynayaba. Cabdiqani Ismaaciil Goox waxaad kamid tahay wariyaasha ka howlgala gobolka Sool in badan baa lagu xidhay in badan waxaan maqlay wariye Cabdiqani baa la xidhay xaligaasi saameyn intee leeg baa u maleysay inuu ku yeelan doono Soomaaliland. wallahi waxaan u maleynayaa waxyaalahan tacdiyadan dhacaya Soomaaliland ka geysanaysa deegaankani bay ugu muhiimsan tahay tacdiyadan dhanka saxaafadda loo geysanayo gaar ahaan marar badan hadaan maqashaan Cabdiqani Goox baa la xidhay waxa la igu xidhayaana waxa weeye wadantan ummadan ka shaqeynaya bulshadan aaraahdeeda aan gudbinayo baa la diidan yahay. in badan waxa la isku dayay xadhkaha la geystay saldhiga aad arkaysaan ee aan maanta hor joogno baa la igu xidhay 29 jeer baa la xidhay intii Soomaaliland timi oo 3 jeer oo kamid ah xabsiga weyn la gudbiyay waa 29 jeer oo 3 jeer oo kamidana xabsiga weyn la gudbiyay. marka waxaan oran karaa intaasi kuma ay eekayn tacdiyada loo geysanayo saxaafadda. waxaad la kulantay gudoomiyaha gobolka Sool oo dhawaan la soo magacaabay waxaad moodaa barasaabadii hore gobolka inaadan la kulmi jirin wax wada shaqeynad ka dhaxan barasaabka cusub see shaqadiisa iyo kulankiinaas maxaad ka wada hadasheen. waad ogtahay barasaabo hore oo baa gobolka soo maray oo Soomaaliland u soo magacawday badidoodana waxay noqdeen kuwa aan isku dhacnay qaar xidha qaar tacdiye geysta inta badan ma sii joogi jirin oo la bedeli jiray. barasaabkan cusub ee la keenayna waxaad moodaa warbixintii gobolka la soo siiyay ku jirtay inuu aniga la kulmo. taasna waxa ay markii ugu horeysay kulamadii ugu horeysay bulshada qaybaheeda kala duwan baan kulannay waxaanu ka wada hadalnaa waxa weeye sidii danta ummadan maaragtay looga shaqeyn lahaa wixii siyaasadana adoo Khaatimadaada wata halka dhigo anuu Soomaaliland halkaas dhiganaya wixii danta siyaasadda arrimaha bulshada inaan ku wada shaqeyno taa wixii bulshada meel baan isla dhignay tii siyaasadana nin walba tiisu wata Soomaaliland tiisu wata ana Khaatimadeeda wata. ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku dhaqan gobolka Sool dhawaan sida la sheegay waxa bilaami doona laami 4 kiiloomitir wadada koonfurta aada iyo dhakhtarka loo dhisi doono horumarka ay Soomaaliland gobolka wada soo aragtaa. wallahi xaso horumar inoo noqon maayaan inagu halgan baynu ku jirnaa xaalad xasaasi ah inuu ku jirnaa oo Soomaaliya aad moodayso inay inteeda badan soo dhaaftay oo aynu hadeer ku guda jirno inagu xaaladeena aynu maarayna mooyee waxaan u maleynayaa waxyaalaha noocan ee dhacdhacaya waan soo dhaweynayaa jidka loo sameeyo gudaha magaalada Laascaanood ee dhakhtarka isku xidhaya oo aan in badan maqlayay jidkaas muhiim buu noqon doonaa dhaawacyadii inta badan iyagoo jidka sii socday ilaa dhakhtarka ilaa inta laamiga u dhaxaysa ku dhiman jiray ama dhibaatada ka soo gaari jirtay in wada laamiga loo sameeyo aad baan u soo dhaweynayaa wadada kale halka ka baxaysa ilaa Royal ilaa gaag maraysana iyadana waa soo dhaweynayaa laakiin xaaladda kale inaga inoo taana ka deegaan ahaan waxa askar may maqlayaan talo wayalka waan soo dhaweynayaa
aad buu maasiyay kaasina waxa wariye Cabdiqani Shuux oo aan ku wareysanay barnaamijkeena kaamirada qarsoon ugu dambeyd maxaad ku soo gabagabeynaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa mar kale ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kulmiyey inoo suurtageliyey inaynu klib si xorriyada oo waliba xorriyadu ku jirto inagoo maanta ag taagan 25 tallaabo inoo jiro saldhigii dhexe degmada Laascaanood ciidamadii booliska iyo kuwa militaarkuna ay aageena marmarayaan inaan hawsheena wadano danteena iyo qadiyadeena ka hadalo qadiyadeena waa khaatumo weeye Soomaaliland waa Soomaaliland khaatumana waa khaatumo waa laba maamulo isbarbar yaala in nabadgelyo ay ku wada noolaadaan aan jecel lahay inuu dib dhacana ma jeclinba dadku way wada dhaleen anigu wada ogtiino anigu hooyaday waa reer Soomaaliland Hargeysa bartamadeeda ka soo jeeda haddana de maanta qadiyadaydu aniga waa khaatum ma garat hooyaday waa Sacad Muuse aniga soo ma ogid intaas ayaan la wadaadeel ku soo koobaynaa barnaamijkeena xogta kaamirada qarsoon oo aan toddobaadkan ku wareysano dadka bulshada dhexdeeda saameyn